فيصل علي الشيخ محمد قدوميها كورتجا أفوين كي كيد كراشين كقرنكا ورباهين تدولة كلها اللي حفيز كيسة أيا كور رمي وحيابه وقبصو مي قرشياش مستقبل كا وكوها جدونه هيدا كورتجا أفوين كي كيد كراشين كقرنكا وحيابه نوقب صومي وأي كم تهيرنتي إن إسكودونو hawshii ama mandatekii ay u xil saarneed hay'adani oo runtii aad u kala firqsanaa inaan isu wada keeno hay'adihii ku shaqada lahaana runtii aanu kulmino oo aanu ilaa 5 shir muddadaasi runtii aanu qabanno sidoo kalena aanu u dhaadhicinay gobolada in hay'aduhu ay shirarkii hay'adda OCHA oo runtii gacan naga siineysay in gobolada Togdheer Sanaag iyo Awdalba runtii lagu qabto gobolada kalena runtii aanu gaarsiino si loo ogaado meelaha gaabisku ay jiraan iyo meelaha runtii wax qabadka wax laga qabtayba iyo dhibaatooyinka meelaha ay ka jiraan gobol si aynu ugu daadegno midna national noqdo midna heer gobol uu noqdo hay'adaha ka shaqeeyana runtii ay ka wada qayb galaan waxaan runtii kor u qaadnay oo xoojinay dhinaca xog isweydaarsiga hay'adaha dawliga ah iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka oo aan xog isweydaarsi fara badan interventionada ama waxyaabaha mucaawinooyinka ay sameeyaan runtii xiriir weyn aan ka yeelnay waxa aan muddada aan joognay xilka runtii aan qaybinay in ka badan 730,000 oo qoys oo raashin ama lacag loo qaybiyay oo la gaarsiiyay afartii bilood ee u dambeeyay sidoo kale waxa aan diyaarinay dhulalkii laga dhisi lahaa oo meelo wanaagsan runtii ku haboona ah magaalada dhexdeeda ah xaruntii gobolka Togdheer oo aan doonay gobolada bariga oo dhan inay xarun u noqoto magaalada Burco oo distributionka gobolada bari oo dhan runtii aanu qaybino xarunteedii stoodadii laba stood oo waaweyn baan runtii ka helay anagoo u mahadnaqayna meerka iyo gudoomiyaha gobolka iyo dadkii nagala qayb galayba sidoo kale waxaan runtii diyaarinay Berbera oo yana dhul iyo dhismaba runtii hawsheedii aanu gacanta ku hayno Hargeysa oo aan hoolashii iyo xaruntii aanu gacanta ku hayno gobolka Awdal oo yana noo diyaarsan tahay magaalada Boorama dhulkii uu noo diyaarsan yahay isaguna marka runtii waxyaabahaas waa waxyaabihii aadka noogu qabsoomay ananu jecelahay inay noqoto mustaqbalka kuwa dhaqaaqa Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa.